soo dhawow baan ku leeyahay waxaad ka tirsanayd kooxda xidigaha geeska oo fankaaga uu dee runtii kasoo hilaacay kooxda in muddo ahba kamaad soo dhex muuqan bal hadda halkaasi haddii aada noo iftiimiso iyo kooxdaadii maxaad ka damacsan tahay siday wax u jiraan bal warkana sagale horta waa haddii la nool yahay kule lasku soo noqon kooxdii xidigaha geeska ayaan ka tirsanaa jiray marka hore waan salaamayaa meel kasta ay joogaan salaan qiimo badan baan hawada marinayaa waanu kala baadnay oo qaarkood wax isku ay dambeysay 2015 qaarkood wax isku ay dambeysay 2016 dabayaaqadii qaarkoodna 2017 dhamaadkiisii waxaad moodaa inaanu anan xidhiidhkaygu aad u sii kala fogaaday balse waxaan rajaynayaa insha allah inuu jawigu ku noqon doono 2013 2014 insha allah haddii la maxaa ka qosliya nimcaan oo uu markuu arko uu ku farxaa maxaase ka cadhaysiiya aniga horta farxadeedu waa hooyaday markaan hooyo u tago ama u socdo xaggeeda aadan u farxaa waxyaabaha igu daran iga cadhaysiyana waa in la eedeeyo anaan waxba qof ku samayn eeda aad baan nacahay eeda ma ka heestay may weli kama heesin laakiin waan ka heesi doonaa qodobada kuwa calaamadsan bay ku jirtaa haa dee qof bilaanood waxaa jirta Soomaalida qof aan ku aqoon dhigtaan ka maqlay oo eedka hooynaya amaba kugu haysta hadal qof kale ka soo maqlay baladu kale ka garbax xagga loo qaadaya haa Soomaali baynu nahay eeda waa hagaag heesta kale ee aad markani aynu dhageystayaasha ku soo dhaweynino xaggan adigan marka dooqa ku deynaya bal noo soo xul dhexdeen dabka ka shiran kuwii dara gogoan heestaas oo iyadna kamid ah heesihii sanadkii dhaafan soo saarnay haddii dadka qaar sharkii xumaha dawo looga dhigay oo jacaylkuna ruux u diran aan mid aan ogeyn ku daray heestan aad jeclahay heestaasi si gaar ah ku taabanaysa runtii qiso waxaan ku sameynay dhaba isla Djibouti waan ku sameynay heestaas oo anun baa la xaq saaray waxa weeyaan laakiin qisada aniga ma ahayn qisadan kuwii daara ku guban wala iyo bilaa maxaa la oran jiray dab munaafiq shiday muumin baa ku guftay la oran jiray hana soo gaarsiinina dabkaas nimcaan waxaad qaadaa heesa aad u tiro badan oo jacayla oo aad iyo aad u tiro badan dhinaca jacaylka waad noo sheegtay inaad isku fiicneedaan iminkana maasha allah xaas iyo caruur aada leedahay aad baynu u salaaminaa ma jiraan heesahaad qaaday heeso si gaara kuu taabta oo adiga qiso ahaan lagaa sameeyey horta sagale way jiraan oo heeso waxaa jira waxaan xasuustaa xataa qisooyinkooda aan la wadaagi jiray abwaanka sida Jilani oo kale Jilani heesaha uu sameeyo waxaad moodaa inaan anigu isaga aan kaga badin jirayba waxaan xasuustaa amaan jeclahay heesta la wallow aan baran bugaan sameeyay ku yiri heestaasi waqti waxayna soo martay aan ka sheekin karin waxayna kamid tahay saan madaxay saaran ama sida gaarka aan xuso